salaamullaahi calaykum dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono marxaladihii iyo heerarkii ay soo martay idaacadda Horn Afrique. Si gaar ah barnaamijka diiradda waxaan ugu saari doonaa jadwalkii iyo barnaamijyadii idaacadda, wariyaashii ka howlgali jiray idaacadda iyo tacdiyadii ay la kulantay idaacadda Horn Afrique. Waxaana halkan si wadajir ah idinkaga daadihinaya barnaamijka Deeqa Maxamed Majabe iyo anigoo ah Cabdisalaam Sidiiq. kahor intii aan la aas-aasin idaacadda Horn Afrique magaalada Muqdisho waxaa ka jiray idaacado ay lahaayeen hogaamiye kooxeedyo kuwaasi oo baahin jiray afkaaraha hogaamiyeyaashaas waxayna Horn Afrique oo ay aas-aaseen 3 aqoon-yahan oo kala ah Allaha u naxariistay Cali Iimaan Sharma Arke, Axmed Cabdisalaam Xaaji Aadan iyo Maxamed Maxamuud Cilmi Dulcad ay furtay qaab warbaahineed cusub oo madax bannaan kaasi oo ay dadka si xor ah uga dhiiban karaan afkaarahooda. 12 Diseembar 1999 waxa ay ahayd markii si tijaabo ah ay hawada u soo gashay idaacadda Horn Afrique oo isla 19 bisha shaqagal noqotay. waxay noqotay idaacaddii ugu horeysay oo ay dadka si toos ah u soo wici karaan iyagoo guryahooda ama goobahooda ganacsiga jooga, isla markaana ay ka dhiiban karaan afkaarahooda ku aadan siyaasadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. waxay go'aansadeen in marka ugu horeysa dalka Soomaaliya laga sameeyo warbaahin madax bannaan oo ka shaqeynaysa nabadda iyo dib u dhiska dalka. Xilligaasi oo ay dalka ka jireen dhibaatooyin culculus iyo ammaan darro oo ay sababtay dagaaladii sokeeyay, waxa ay adkeysi ka muujiyeen dhowr jeer oo la damcay in gebi ahaanba la xiro idaacadda Horn Afrique. runtii marna waa xisaabteeda kuma jirin in hawsha ah in saxaafad xor ah oo qaasatan ah midda warbaahinta radio iyo TV ay tahay wax sahlan. asraabta waa ku darsanaynay markii aanu furaynay Horn Afrique in ay tahay howl aad u dhib badan, laakiin waxaanu ogeyn inay jirto baahi uu dadweynuhu u qabo inay helaan radio xor ah, TV xor ah oo ka jawaaba baahidooda. baahidaas in laga jawaabo waxay markiiba abuuraysaa qatar, iyadoo oo saxaafaddu guud ahaanba mar walba ay tahay meherad aad u dhib badan marka ay ka shaqeynayso dhul colaada ka socdaan oo dadka colaadahaasi wadaahi ay rabaan qolo walba in dhinaceeda kaliya akhbaarta la helo. waxaa abuurmaya dhibaato ku imaan karta, laakiin dhinaca kale waxaa barbar yaalla baahida ay shacabku u qabaan inay xaqiiqda ogaadaan. ilaa ay xaqiiqda ku ogaadaanna ma gaari karaan go'aamo sax ah oo ku salaysan xaqiiqda. ayadoo baahida la eegaya ayaan waxaan wada go'aansanay inaanu khatarta qaadano, qofka wariyaha meerada ka dhiganaya, qofka maalgelinaya, qofka maamulaya intuba inay qaataan qatar oo qatar. Furitaankii idaacadda Horn Afrique oo markii dambe sii balaaratay waxa ay noqotay mid wax weyn ka bedeshay fikirka maskaxeed ee bulshada. Shirkadda warbaahinta Horn Afrique oo ka koobneyd idaacadaha Horn Afrique, Capital Force, TV-ga Horn Afrique iyo xarunta cilmi baarista iyo tababarada, waxa ay udub dhaxaad u noqotay isku xirka bulshada rayidka iyo adeegida dadka aan codkoodu meelaha fogfog gaaraynin. warbaahin magac tayo iyo waxqabad badan leh ayay ahayd idaacaddii idaacadaha hooyadii warbaahinta Horn Afrique Dayax weeye. dayax weeye dayax weeye dawga habboon dadweynay ku hagtaa dawga habboon dadweynay ku hagtaa
habboon dadweynay ku hakaa kolbadawga habboon dadweynay ku hakaa. barnaamijyadii toddobaadla ahaa waxaa ka mid ahaa hadalhaynta xulashada caweyska imaqashii midadaali ama salaamaha islaamkii nolosha maameelada hooda iyo nasiib dhegeyso ku dhaqan faaqidaada ciyaaraha sahanka bulshada haweenka iyo nolosha kulanka saxaafadda barbaarta. wariyaal magacii maamuus dadka Soomaaliyeed ku dhaxlay ay soo saartay idaacadda Horn Afrique. haddaba wariyaashii iyo farsamayaqaanadii ka howlgal jiray idaacadda Horn Afrique waxaa ka mid ahaa Cabdalla Nuurudiin, Mahad Axmed Cilmi, Cali Imaan, Sharmaake Xasan Cadde, Cawil Daahir Salaad, Saciid Tahliil Axmed, Cabdiqaadir Max, Bashiir Badane, Maxamed Cumar Baakay, Cabdulaahi Kulmiye, Ibraahim Maxamed Aadan, Cabdiqaadir Nadaara, Sunni Saciid Saalax, Jaakad, Yaxye Cali, CD, Farxaan Lamaane, Iidle, Dhoore, Ayaanle, Cabdulaahi Galgacal, Axmed Idaawaqac, Farxaan Lamaane, Maxamed Xaaji, Xasan Kaafi Quste, Baliil Xasan Sabriye, Maada, New York, Maxamed Cabdulaahi CD, Sheekh Nuur Maxamed Abkey. waxaa sidoo kale ka mid ah Falastiin Axmed Iimaan, Sacdiye Gabarey, Zaynab Abuukar, Kiin Cumar Makaraan, Muna Cumar Xasan, Canab Maxamed Yare, Farxiye Kayrto, Leyla Muuse, Sahre Cabdi, Yaasmiin Mayow, Xamdi Kadiye, Sawde Xuseen, Nimco Xasan, Sacdiye Maxamed Cabdi, Firdowse Maxamed Cabdulle, Axmed Abshir Geedi, Maxamed Sacuudi, Xasan Xuseen, Cabdi Yare, Awees Ar, Cabdi Samed, Cilmi Boodhari, Cusmaan Fantastic, Ridwaan, Sabaax, Saciid Gabayre, Maxamed Gaarane, Cabdi Fitaax Xasan, Analdoosh, Awees Foodey, Farxaan Buubshe, Maxamed Yare, Faarax Beere, Cali Qumeyni, Ota Dheere, Maxamed Ciise, Nuur Cali Faarax, Kadiye, Sugulle, Mahad Istiila, Niiniile, Sheekh Nuur, Shariifka, Dahraan, Maxamed Macalimu, Sharmaake Jiirow, Maxamed Dhagaweyne, Samadoon Yalax, Cabdulaahi Jaamac, Jibriil Cabdulle, Cabdiqaasim Macalin, Axmed Cabdisalaam, Maxamed Cilmi Dulcad iyo Maxamed Shariif. goobta waxaad maqli doontaan barnaamijkeena xiisaha badnaa ee muqdisho iyo maanta oo aad inta badan kala socotaan soo ogaanshaha xaaladaha nololeed xaafadaha magaalada muqdisho. waa xubinteena yahuudi oon xaafadaha ku soo salaaman iyo doodeena maanta xiise gaara leh. sheekooyinkii bixi jiray waxaa ka mid ahaa Magafe, Intay waayuhu badeen waqtigu ha ku baro, Jinni iyo Jahwareer Jacayl, qaamqow iyo jarjarqow. bal aan dib idin xusuusiyo taxanihii qayb ka mid a waxaana idin soo jeedinaya wari Baakay. kusoo dhowaada sheekadii Jinni iyo Jahwareer Jacayl. markiiba ardadii jaamacadda idil ahaantoodba waxay xirteen boorsooyinkoodii iyo qalabkoodii guud iyagoo isku macsalaameynaya farxadda guud ee fasaxaasi. maxaa kugu dhacay? waxaa dhacay waa ogtahay wax ka sheekeen u may waa ogahay laakiin waaba iswaashay aniga horaan kugu sheegay afaarahan isaga baxaan ku iri
baalqalooc iyo jinni iyo wax la sheegaysa waxaa la ogyahay horta adduunka labaa jirta qof waashay oo maanakobi la geeyo waa la yaqaanaa qof isbitaal la geeyo daawooyin loo qoro sariir la saarana waa la yaqaanaa madaxna ku xanuunay haa walaalo oo kanina u siya kaniya hay kanina ma liyaabanda aqoontiis ma leedahay abaa magaca amran magaciga aan ku baro khamquu waa la dhahaa ya khamquu waa la dhahaa barashadii ma liyaabanta الله أمرن وقفكنا أمرن محا هلكان كسيحي ومع قشن كادح جيفتي حالو دن waa lagu raadinay hooyada iyo reeri iyo xaafadii dhan waa bayaabeen maxaa meeshan kusiixi amran walaalay hooyada iigay abtigay awaa maxay amran dahabka aawada halkee dahabka ka keensatay saacadan laga bilaabo indha isku qabo dahabkana meel fiican gashay iska dhumo saacadan laga bilaabo indha isku qabo biladweena joogta waxna is absiisanaa amrana hadda ma ifaanta ana xumaan ku wato marka waxaan rabaa inaa dadkaana u sheegto jaceelkan anagu kuu qabo marka waxaan rabaa inaa xumaan iga fahmaan dahabkan hadda soo qaada meelaan ku geeya markiin tagnan tacadiyadii loo geystay idaacadda Horn Africa oo isugu jirtay dilal bililiqo hanjabaad haddaba maalintii ugu murugada badneed Horn Africa 12 Agoosto 2007 waxaa inoo soo jeedinaya wariye Ayaanle idaacadda Horn Africa inkasta oo weerar badan ay ku hayeen kuwa diidan in la maqlo codka shacabka Soomaalida haddana maalintii dhabarka laga wareemay waxay ahayd 11 bishii Agoosto sanadii 2007 maalin sabti ah waxaana Horn Africa ay weysay 2 qof oo qaali ku ahaa shaqada warbaahintaasi xilli aroor ah qiyaastii 7 iyo qadar subaxnimo ayaa 2 nin oo hubaysan ay toogteen Mahad Axmed Cilmi oo ku sii jeeday shaqadiisa meel aan ka fogeyn xarunta warbaahinta Horn Africa inagoo koox wariyaal ah ku jirna qolka wararka iyo barnaamijyada idaacadda Horn Africa ay lahayd waxay noo soo galay 2 ka mid ah wariyaasha Horn Africa Zainab Abubakar iyo wariye Iidle oo runtii ooyaya aadna u argagaxsan markaas waxay noo sheegeen in Allah u naxariistee Mahad Axmed Cilmi lagu dilay meel dhowr tallaabo u jirta dhismaha Horn Africa Maxamed Cismaan Niyo waxaa subaxaasi uu ka mid ahaa shaqaalihii ku sugnaa dhismaha idaacadda Horn Africa sababtoo maad Allah u naxariistee dhaxda u xirnay jiinsu watay iyo shaar cadaana sidaan filaayo mise waxay arkeen Mahad oo dhiig baxaya oo dhaawac aad u darana Mahad isagoo dhaawac ah ayaa shaqaale ka mid ahaa Horn Africa ula carareen cisbitaalka waxaana uu dhintay intii la sii waday daqiiqada kadib haddana waxaa naloo sheegay inuu dhintay Mahad Maxamed Cusmaan waxa uu ka sheekaynayaa sida uu wariyaashii xarunta ku sugnaa xaalkoodu isku bedelay gaar ahaanna Xasan Muuse Sabriye oo isagu wax yar ka hor meesha Mahad lagu dilay soo maray waxaa tiftira ahaa Xasan Muuse Sabriye runtii oo isaguna intaanu dilka dhicin ka hor soo galay dhismaha oo laakiin waxba aan noo sheegin oo shaqadii tiftirkiisii hawshiisii watay laakiin markii la dilay Mahad in badan ku celcelinaya nimankaas annagu way dili rabeen xitaa wadnihii laga qabtay wariyaashii qaaday istuudiyaha la dejiyay runtii dareenkiisu wuu ka darnaa wariyaasha kale sababtoo maadaama isagu tiftirana ahaa arkay dad u soo istaagay mar uu gaari kaga soo degay idaacadda horteed cali iimaan sharmaarke oo ahaa agaasimihii warbaahinta Horn Africa waxaa markiiba uu maqlay geerida Mahad Axmed Cilmi uu amar ku bixiyey
in la damiyo idaacadda dhegaystayaashana loo sheego in mahad axmed cilmi la dilay. waxaa saacado kadib xarunta Hoon Afrika soo gaaray Cali Imaan Sharmaarke waxaana uu isla markiiba isugu yeeray shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta idaacadda Hoon Afrika shir degdeg ah si looga arrinsado aaska marxuum mahad axmed cilmi. waxaa isugu yimid 10kii subaxnimo waa taqaanaa howlka tababarada idaacaddu lahayd Hoon Afrika waxaana shirkaasi gudoominayay Allah u naxariistay agaasime Cali Imaan Sharmaarke. علي wuxuu noo sheegay wuxuu yiri mahad Allah u naxariisto geeridu waa xaq qof kasta uu dhimanaya mahad wuxuu ahaa qof nagu weyn oo aan jecelnahay waxaan uu si gaar ah u la hadlay Allah u naxariistaysna Saciid Tahliil oo shirka joogay oo uu yiri waxaad wacdaa ehelka mahad axmed cilmi una sheeg inaan aaska inagu leenahay. waxaa la isku diyaariyay aaska mahad axmed cilmi waxaana ka qayb galay dad badan oo ehel asxaab iyo dadweyneba lahaa waana kan Maxamed Cusmaan oo ka qayb galay aaskaasi. janaasadii waxaan kula tukanay masaajidka Cali Suufi halkaas ayaa baabuur badan oo isugu jira shaqaalihii iyo dadweynihii kale dhageystayaasha ahaa ee aad u jeclaa dhageysiga barnaamijyada mahad axmed cilmi iyo sidoo kale guud ahaan idaacadda Hoon Afrika ayaa baabuurta soo raacday. sidaas ayaanu ku tagnay qabuurihii barakaad halkaas ayaana lagu aasay. geerida mahad aad bay u taabatay qulubta dhammaan intii muuqiisa iyo codkiisaba taqiinay waxaana intii aaska la dul joogay guud ahaan dadka ka qaybgalaya ay muujinayeen siday uga xun yihiin dhacdadani maanta ku dhacday. markii uu dhammaaday aaska mahad axmed cilmi waxaa dhammaan dadkii ka qayb galay ay u diyaargaroobeen inay ka soo dareeraan aaska waxay u jahaysteen dhanka magaalada iyagoo raacay gaadiidka ay saarnaayeen. wax yar kadib markii laga soo dhaqaaqay qabuuraha jawigu wuu isbedelay oo qarax ayaa la maqlay waxaana halkaasi ku dhintay Cali Imaan Sharmaarke Allah u raxmadee agaasimihii idaacadda Hoon Afrika. dhawaqii ugu horeeyaan maqlo waxay ahayd gabar kamid ah gabdhaha wariyaasha oo aan garan karin ilaa hadda qof ay ahayd oo dhahaysa Cali waa dhintay. qof kasta wuu shoogay markaan haddana gaarigiisii soo aadnay waxaan arkay Falastiin Axmed Xaaji iyadana aad u shoogsan ilaa maadaama gaariga la saarnay. haddana waxaan aragnay wariyihii kale Reuters xilligaas u shaqaynayay Sahal Cabdulle oo saan dhinaca midig dhig kaga yaalo darawalkii gaariga isaga shoogsan ku waday Cali. markaan meeshii loogu dul tagay wariyaashii dhan ugu dul tagnay waxaan aragnay Cali oo isla markiiba naftu ka baxday waa la soo qaaday gaariga idaacadda la soo saaray. geerida Cali Imaan Sharmaarke waxay sii murjisay suxufiyiintii ka shaqaynayay Hoon Afrika iyo kuwa la midka ah oo dareemay inay jirto khatar toos ah oo ku wajahan naftooda sidaa darteedna aysan ku sii noolaan karin caasimadda Soomaaliya. waa tahay dhageystayaal waxaan jecelnahay barnaamijkeenii aan kaga hadlinay warbaahinta Hoon Afrika inaan gebi ahaanba halkaas aan kusoo afmeerno barnaamijka intuu hawada ka baxay waxaa si talantaali ah idinkugu daadihinayay walaalkay Cabdisalaan Maxamed Yaasiin Sadiiq iyo waliba anigoo ah Deeqa Maxamuud Maxamed ku magac dheer Deeqa Majabe. barnaamijkan mid laacayna intaan hawada dib dambe ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa hees gabagabada barnaamijka. qalalaas ya dagaalba loo qiildayayaa qiimihii nolosha la qasaarinayaa qalad baa qalad lagu saxayaa
Bye.